أبو هي أبو راديها كل مية إيسار إينا كان هيا أبو warkaan kooxdu ku doodo midba koona la aado KNN ka deyso liira kalamaano kumanaan ku dhageysto bulshadaan koranaysa bal maxay ka heshaa arin ay la kurbooto ka shiilaabta gubaysa ayay kaftan sheeka ku saabsan kaga soo gudbiyaano kobtii loogu midnaa iyo qandhadii karinaysay iyadoo kalarkiiya markay kalamaan ka maqlaan kaarkii baa ka yaraado kaniin bay noqotay dawo ay ka badaane maxaa loo koran waaye ileen waa kulmiyo dadka waa kulmisaaye kaniin may noqotaa iyo daawo ay ka badaan inay dawo tahay waxaan ku kasay aniyaa kumanaan qofood kurbey kaafeyday kaalamaan aniyaa kumanaan qofood kurbey kaafeyday kaalamaan KNN arreer kalamaanow ana deertuu magin biifadi asal bereer kalamaan aytin lamba meeli faasan kala dhii laakiin deertuu magaaje biibadan iyo erfadi ana maday isaaqow deerti biyo badan horay ay u jirtay oo balalaqley aa la dhihi jiray ee xaa kaloo cusubood noo haysaa warniyow deertan waxaa la ydhaha suba war qulqulisaa la dhahaa arooda deertan deeqadaadleeyaa la dhahaa warwar ma haysiini deertan barwaaqa soornaa la yidhaahdaa war ma taqaaniine dayrtan fataha ayaa la yidhaahdaa fataho naga tag cambaroy adiga dayrtaanu ha kugu fatahdo feeraha kalu ha kaaga dhacde ha habaaran duqda idam ala la hele asbax hay cuunin warna miyaw deertun biibadan alle ere haddii biibadan koolayti jirtayna tantii lamaadu soomaali meel kasta roogda jabuuti ilaa iyo LFD wada waraabeen nimayaw dayrtan inay barwaaqa taha murunka ma taagne inti ku baxda allahow naxariisto inti ku bulaashana allahow barakeeyo siyaasadda intii isku khilaaftayna allah isu soo dhoweeyo intii ku heshiisayna allahu siyaadiyo wadaadadii iskhilaafana xaqa allaha tuso warwar ma haysaane shiikh umal shalay howl weyn ayuu kula kulmay dadkii war shiikhu muxaadaradii ma jeediyey war xaflad soo dhowaynaha shiikha loo sameeyey naga dhegaysa warka aroo carunaa carun soo celiyey maxaa la qalayne war sheekh soomow meeluusan albaabkeeda geli karin ayaa lagu qabtay war waad marantiina naga dhegaysta shiikh umal wuxuu yidhi haddaan fadwo soo saarayo dadka dhiiggooda lagu daadiyo uma soo gurman lahayn wuxuu kaloo yidhi reer muqdisho raalli baan ka ahay wadaadkii xagxagtay intii ku raacsanaydna aftis bay iga yihiinuu yidhi shiikhu haddaw intaasoo dada cafiya aniguna xabbad uma heesna adduunya aakhiro ar abdullow adiina may afhayeenkii soomow nagati war shiikh umal wuxuu yidhi muxaadarada dawladda ii soo jeedisay inaan qabto markii buuq ka dhashayna anugu waxaan go'aan ku gaaray in la joojiyo laakiin dawladda iyo madaxweynuhuba waa ku adkaysteen waxay igu kaliftay inaan madaxweynaha ku qanciyo qisa diiniya iyo axaadiis nebiga ka sugnaatay arooda aniga waxaan la yaabanahay madaxweyneyaal wadaadda waa jeegi jireen culamo dibadda ka timaadoo taageeraysana ma arki jirin say wax u jiraan kuwaan say ku taageereen argoyow ad walmooshiidii mayle ereey ulma lankiye jeella qiilman waayta lankiye neebtana qatalman waayto leere aryaadhaha naga shibdhaca fiqi tolkii kama jinna tagee war xildhibaan fiqi mar horuu sheekh soomo la safti war madaxda maantay waa qurba joog wadaadaduna waa qurba joog warwariya dhammaantiis shiikh umal wuxuu yidhi muqdisho waa caasimaddii soomaaliya ilaahay baana ka dhigay martina kama ihi dadkeedana waan u caloolfayoobahay war sheekh umal wuxuu yidhi waxaan arkaya wadaad dhahay wadaadada kala qabta wadaadada ma dirirsanae qofkii qaldan waa in la yidhahda waa qaldan tahay warwar ma haysaane jadwalkii doorashada galmudug ayaa la soo saaray maanta kow bal noo wad sheekada war yeeli mayna maa soo waddaa wallaahi aan yeelayna iyo bilaahi aan yeelayn iyo dooni mayno sheekadeeda ee ha af jaranti widaay korkan iska teeganya war heedana dhegaysta hanala waalanine 22 maalmood gudahood oo maanta ka bilaabanaysa ayaa waxaa la rabaa in odayaashii la isu keeno xildhibaanadii la soo xulo guddoonkii la doorto madaxweynihii la doorto madaxweyne ku-xigeenkii la doorto la dhammaystiro dhismihii maamulka alla dhammaystiro war dawladdan degdega ee galmudug laga dhisaayo ma haystaba yaacda war wax raagara kuma sameeyo la dadashiye ka leex eebaagoo dumarkana uma roonaa la yidhi haraka hana barakana waa la yidhi khalaas fii haada kidaana waa la yidhi war waxaa la yidhi degdeg hadday door dhali lahayd kaadsiimana kiish lacag ay dhali lahayd warnimiya uusan waalantiina degdeg uusan sheegasan may ayti halsan iyo washiya meel la fidhiye tiidana oo ma aragne hiraabtilay waa kan barya hamiinkiina madaxweynaha aytiya ku fududaaytay armaday isaaqow hiraabtan ad sheegaysid intiiga la hertid galmudug waxaa ka soo socda madaxweyne la yidhaaho
gareen galmudug warniyow cub cir 28 bilaha taha socota madawiinaha galmudug arkaas waa lagu yaqaano waa qoorta gareen aroo adigana cub cir sheeg madaxweynaha galmudug odawaa cub cir 23 bisha madaxweynaha galmudug sheeg guura gareen arxambaray cub cir sheeg madaxweynaha galmudug cabdi dheere cub cir sheeg madaxweynaha dhalan doona ee galmudug arkaas waa xaaf gareen muruna kuma jiro war adeer macalin maxamuud iyo shaakir ma cirkaa loo tuuray warwar ma haysaane xeeraalihii qaranka axmed cali daahir madaxweyne farmaajo ayaa xilka ka qaaday war ma xeerkii nabadii nolol la qabsan waaye war ninkaan nabad iyo nolol waa ka horreeyana dhegayso yaa ma la jaan qaadi waayey war laankaas dawladdii hasin sheeg laanki ha keeray inka muddada dheeray intii nabad in nolol la shaqayto haay horta adigana maday isaaqa waxaad leen la sheegtaa laameeryaha ku disheen war hana wareerine waxaa loo magacaabay garyaqaan saleemaan maxamed maxamuud waaba haddaan gar u dhiibdho war dacwada badda wax badan ayuu ka ogaayay axmed cali daahir muhiimna waa u ahay war yaa ogaal u baahan ciddii wax ogaata dila ciddii la ogaata dila ogaalka laftiisa dila soo lama dhihin warwar ma haysiine dacwadii xisbiga sheekh shariif mar kale maxkamadda la keena maanta warwar ma haysiine maanta xildhibaan la yidhahdo dalays xasan aadan baarlamaanka hortiisa ay ka hadashay waxayna tiri gobolka gadaana u socda hay'adda nabadsuguud iga celisi tallaabo foorteenbaa may qaaday horta waxaan idin weydiiha dalayse xasan aadan samatar weligoor miis la heeseen dalays isku facaan ahayna allah u naxariisto war maanta baarlamaanka wuxuu u yeeray wasiirka amniga ducaale taliyaha booliska xajaar iyo taliyaha hay'adda socdaalka iyo jinsiyadaha koofi waxaana la yidhi baarlamaanka hor yimaadiin waxaa wax laga weydiinaya dadkaa maalin kasta la celinayo warniyo shalay doorashooyinka waa la diyaariyaa la yidhi war ma hayside war madaxweynaha koonfur galbeed lafta gareen wuxuu yidhi xildhibaanada koonfur galbeed kuwa jubbaland iyo galmudug oo laysku daray waa ka badan yihiin sidaa darteed waa in la yareeyaa almiina ma ku diray odayaashiina waxay yidhahdeen ha naloo badiyo ha barakoodeene aroodayaalkaas la dardaarmay ambuulo galnya badiin munroona kuroogidhe war adeer xildhibaanadii jumhuuriyadda somalilan wakhtigii waa loo kordhiyey maantana waa la dhaariyey waana dhaartii 15aad dhaar baaba rogi doontay dadkane qooldiin iyo xeradiin iyo ilkiin iyo aakhirkiin ma lagu dhaariyey war dastuuri maahan taas arooda aniga waxaan ballayaabanahay wasiirada maaliyadda inay dalka ku shiraan maxaa u diidayne ardalxiisya damaashaad waayo waxa marna addis loogu shiraa marna nairobi loogu shiraa marna kambaalo loogu shiraa heshib naga dheh daynta la cafiye ariga beesida bayle wuxuu ku dhameeyay shir dabadda kulligood ma asagaa ka dhiibaa diyaaradda war beledweyne anigoo 6 kun wataan tegey waxaan ku gataan waayo shilin soomaaliba lagama yaqaan lamana isticmaalo cadayna lagama helo burush ayaa la isticmaalaa war waa ilbaxeen dadkaas war ma ilbixina kunkii shilin oo cadayga lagu iibsan lahaa ayaana ka soconbo war ma haysiine golihii deegaanka ee muqdisho ee xilligii nuur cadde la sameeyey waa tii la kala diray maxaa kuwa kale loo samayn waaye anigu intaas waxaan ku daraahow xamar xaaqaadka inkirteen in laga xaalmarshow raaba xamar xaaqaadka inkirteen in laga xaalmarshow raaba war xamar cumar finish haddii guddoomiye looga dhigay maxaalmarinaa u dhiman waa la magacaabay ha la doorto haddii xaalmarin la rabo war lankilin dooradii garabka kama ka siinana war yaa amniga qalqalgelinaya amniga suga waryaada war sharciga ilaasha dalkana u shaqeeya qof walba naftiisu waa inuu ilaaliyaa balaaya idinma aragteen haddaad ii doorataan waxaa nambar 1 ii ah amniga dalku wuxuu ku jiraa xaalad dagaal shabaab baad meesha rabta weerarta shabaab baa meesha rabta qarxisa waxaan haynaa oo kaliya ama dawladdu ay haysaa tacsi iyo cambaareen waxaan bedelaynaa oo kale in dawladdu awoodeedu ku cabirso shacabka intay ugu adeegi lahayd jidadkan la xiraayo oo maalmaha oo dhan xiran waxa weeye waa qayb ka mid ah caburin haddaad ii doorataan haddaan magaalada nabad keeni waayo baabuurta waaweyneed yaan gadaal ka geli jid la xiraayo ma jiraayo baabuurtan qarxaya maalin walba waxa wax looga qaban karaa $1 milyan oo bishii meel loo dhigo qofkii soo sheegay $100,000 in la siiyo haddii uu rabana dibadda loo diro waxyaabaha ay qarxiyeen hadday yihiin hoteello hadday yihiin guryo inaan dhisno annaga maxaa ila annaga ka mas'uula annaga ilaalin weyn nabadgelyadii dadka ku dhinta inaan magdhow siino
waxaan bedelaynaa dhaqankii siyaasadeed ee malaayiin dollar lagu baabi'iyey mooshin dowlad lagu rido iyo mid lagu dhiso waxaan bedelaynaa oo kale dhaqankii siyaasadeed ee madaxda dowladda caado ay ka dhigteen in safarro aan loo baahnayn lagu sii socdo oo wakhtiga iyo hantida qaranka lagu lumiyo maxaa yeelay wasaaradda arrimaha dibadda jirta oo loo baahan yahay inay socoto ma aha madaxweynaha inuu bishiiba 3 jeer baxo waxa ugu horeeya haddaan nolol rabno musuq maasuq inaan la dagaalno siday shabaabka cadowga shacabka u yihiin yaa musuq maasuqna wuxuu yahay cadowga horumarka إلا المسق معناه هو توجوي هذا دورتان مسق هو تارجت كي هو الريوي ولا دجال منا سفر نوا ولا دجال منا قفكي هنتيذا قارن كتكرف له ومدر وكعبيننا حبس لنا قدرنا أرنت وجمهم سنوحيته والربا إلا فهمه سياسته وحل خادم سياسته خيانة معها سياسته بين معها سياسته بلنكبح معها دين الإسلام كنا مقبو قف انت بين وشيكته هذا قبحنا وعيبوي هذا دورتان مدحوين نقول ما ينبضون يا نقولنا وحنقول تجايا عد والبمشي الجوجان وحن حوجنا يا هذا رقم ديال الصوماليات أو رسمي يعني حوجنا يا مش شهر جوكتنا أخرين